بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawaada cashirkii koowaad ee aan uga hadli lahayn adjectiveska, khaasatan comparison of adjectiveska, isbarbardhigida sifooyinka. Caawa ay tahay taariikhda 3 bisha 2021 habeen ay soo galayso khamiis. Waxaan halkan ka sharxi doonaa cashirkaas oo aan ka dhigi doonaa qaab maqal iyo muuqaal ah haduu ilaahay ka raali noqdo, si ay uga faa'iidaystaan ardayda galayso imtixaanada dowladda meel kasta ay joogaan, iyo qof kasta oo gaaro videogan haduu ilaahay ka raali noqdo. Ustaadka saa ujeedaan masuurkiisa waa kaas, magaciisana waa Xasan Cabdisalaan Cabdulqaadir oo ku magac dheer Xasan Kaafi, oo sanadkan ka qalin jabinayo jaamacadda Muqdisho, kulliyadda Arts and Humanities, especially Department of English Literature, kana dhigo dugsiga sare iyo dugsiga dhexe, dugsiga Macalin Nuur Primary and Secondary School ee ku yaalo Holwadaag, maadada luqadda Ingiriiska. Intaas ka bacdi waxaan rajeynayaa inaan cashirkeena hore usii galno. Comparison of adjectives, isbarbardhigida sifooyinka. Markii la rabo in la isbarbardhigo sifo oo adjective ah, waxaa loo baahan yahay in laba shay la isbarbardhigo, marna wax ka badan laba shay la isbarbardhigo. Markii la isbarbardhigayo laba shay, waxaa la isticmaalaa comparative form, qaab la dhahayo, qaabka la isku barbardhigo laba shay iyo ka badan, ama laba qof iyo laba shay. Qaabka la isku barbardhigayo waxaa la comparative form. Definitionkiisa meesha noogu qoran: to compare two people, isbarbardhigida laba qof, or amase things, laba shay. Use, isticmaal the comparative form, qaabka darajada labaad isticmaal, of an adjective sifo. The comparative form, qaabka darajada labaad, is usually badanaa made, waa la sameeyaa, by adding, iyadoo lagu darayo er iyadoo lagu darayo to the adjective sifada. Adjective meesha noogu qoran, intan waxaa noogu qoran comparative form, darajada labaad qaabkeeda. Dag, mugdi waaye. Darker, ka mugdisan. Light, khafiif ah. Lighter, ka khafiifsan. High, sare, in terms of jooga waaya, dhirirka. High, dheer. Higher, ka dheer. Low, tartiib ama hooseeyo. Low, hooseeyo. Lower, ka hooseeyo. Old, duq. Older, ka duqsan. Old sidoo kale waxaa la dhihi karaa duug markii tinkiska la joogo shayada. Old, duug. Older, ka duugsan. Young, yar. Younger, ka yar. Rich, taajir. Richer, ka taajirsan. Poor, faqiir. Poor, ka faqiirsan. Tall, dheer. Taller, ka dheer. Taller, ka dheer. Softy, jilic. Softer, ka jilicsan. haddana adjective kale noo socday comparative formkii. Hard, adag. Harder, ka adag. Warm, kulul. Warmer, ka kulul. Kuleelkan waa kuleelka yare qandaca oo ka seen anaka aan gaarsiisnayn xadka weyn, hot-ka aan gaarsiisnayn. Qandac, warm, qandac. Warmer, ka qandacsan. Cold, qabow. Colder, ka qabow. Fast, xooli. Faster, ka xoolisan. waa xawaaraha markii la joogo. Slow, tartiib ah. Slower, ka tartiibsan. marka inta badan dadka waxay isku qaldaan low iyo slow. Low waxaa la hoos, shayga hooseeyo, oo ama quality-giisa ahaato ama wax kale ha ahaadaan. Low, hooseeyo waa. Slowna waxaa la tartiib, shayga aan aad u ordeynin oo xawaarihiisa aanan sareynin. Notice, xusuusnaaw, the word ereyga then is often badanaa used, waa la isticmaalaa, to compare, si la isku barbardhigo, two things, laba shay, or amase people, dad. For example, tusaale, you say, waxaad dhihi kartaa Master Lee, ninkii Master Lee
is taller than wuxuu ka dheer yahay Philip. Mr. Philip ayuu ka dheer yahay. Tusaalaha labaad a car gaari is faster than wuxuu ka dheereeyaa a bike baaskiil. taas darajada labaad ayay ahayd isbarbardhigida laba shayna loo adeegsado. darajada saddexaad oo ah superlative form qaabka darajada saddexaad aan aragno. definitionkeeda waa kana when goorta you adiga compare aad isbarbar dhigaysid three saddex or amase more people dad ka badan saddex or amase things sheeyo oo ah saddex wax ka badan oo sheey ah. use isticmaal the superlative form darajada saddexaad qaabkeeda isticmaal of an adjective sifo. The superlative form qaabka darajada saddexaad is usually badanaa made waa la sameeyaa by adding iyadoo lagu darayo est iyadoo lagu darayo to the adjective sifada. adjective a meesha noogu qoran tusaale ahaan superlative formka darajada saddexaadna qaabkeeda waa uu noo qoran yahay. mar walbana calaamadaha lagu garto waxaa kamid ah est darajada saddexaad, darajada labaadna er. daag mugdi, daagkasti ka mugdisan ma ugu mugdisan darajada saddexaad. daag mugdi, daagkasti ugu mugdisan. light khafiif, lightest ugu khafiifsan. adjective markii la joogo light waa khafiifka shaygan culeyska ahayn, laakiin sida kale waxaa loo yaqaanaa iftiinka loo yaqaanaa light ama leerka. high sare, highest ugu sareeyo. low hooseeyo, high oppositekeeda waxuu noqonaa low, lowest ugu hooseeyo. oldie duq, oldest ugu duqsan ama qaabka kale oldie duug, oldest ugu duugsan. labadaas macno way ku imaatahay. young yar, youngest ugu yar. oldie duq, oldest ugu duqsan. young yar, youngest ugu yar. rich taajir, richest ugu taajirsan. mar walba est da ugu soomaaliga kaasa ku dareysaa oo ah darajada u dambeyso. poor faqiir, poorest ugu faqiirsan. tall dheer, tallest ugu dheer. small yar, smallest ugu yar. softy jileec, softest ugu jilicsan, softest ugu jilicsan. hard adag, hardest ugu adag. warm kulul oo kuleelka diiran waaye aan saaidka ahayn. warm kulul, warmest ugu kulul. cold qabow, coldest ugu qabow. fast xooli, fastest ugu xoolisan, ugu xooliga badan in terms of speedka xawaaraha. slow tartiib ah, slowest ugu tartiibsan. marka darajada saddexaad ugu aa ku daray af soomaaliga. notice xusuusnaaw the word ereyga da is often badanaa used waa la isticmaalaa before kahor the superlative form darajada saddexaad qaabkeeda. for example tusaale a bee shilling, a bee shinni, a bee mid malabka aan ka cunno. a bee shinni is a small insect waa cayayaan yar. a lady bird shimbirka xayawaanka waxaa la lahaa cayayaan ka yar oo shimbiraha ka tirsan macnaha geedkan doolashaanka ama xaarwaalka ay dhahaan soomaalida oo urka iyo waxyaabahaas ku nool. kaasaa waxaa la nuuc kamid ah lady bird. marka is small ayaa ka yar biiga iyo lady birdka yar. but laakiin an anti quraansho is the smallest ayaa ah tan ugu yar, iyadaa ah tan ugu yar. weli adjectiveka ku jirnaa. if haddii the adjective sifada ends inay ku dhamaato xarafka add ku dar r xarafka r ku dar. kale ha keenin. ida haddii diyaarsanta ay meesha taalo r le ku dar adi. to form saa u sameysid the comparative form darajada labaad. an st ku dar. st to form saa u sameyso st ku dare haddii meesha hore u taalay st ku dar. to form saa u sameyso the superlative darajada saddexaad. adjective, comparative, superlative.
darajada labaad, darajada saddexaad, iyo positivekii hadalka caadiga ahay. Nice fiican, nicer ka fiican, nicest ugu fiican, darajada saddexaad. Close dhow, close sidoo kale waxaa loo adeegsadaa xiridda, laakiin hadda adjective markay tahay markaas waa noun. Markay adjective tahay waxaa loo garanaa dhawaanshaha shayga distancegiisa uu ku dhow yahay. Close dhow, closer ka dhow, closest ugu dhow. Large weyn, larger ka weyn, largest ugu weyn. Rude edeb daro, ruder ka edeb dareysan, rudest ugu edeb dareysan. anshax ahaanta edeb darada taasaa laga wadaa. Safe amaan, safer ka amaansan, safest ugu amaansan. Wide weyn, wider ka weyn, widest ugu weyn. Suppose ka soo qaad. The adjective sifada is a short word, waa erey gaaban that ends kaasoo ku dhamaado inay consonant shibani and has leh a single vowel, hal shaqal in the middle, bartamaha. Just double, labalaab. Just double maxaa labalaab markaas the consonant shibanaha and add ku dar er ku dar to make saa u sameyso the comparative darajada labaad. And est ku dar to make saa u sameyso the superlative darajada saddexaad. Adjective comparative. Sad murugo, sadder ka murugeysan, saddest ugu murugo badan, ugu murugeysan. Wet qoyaan, wetter ka qoyan, wettest ugu qoyan. Slim caato, slimmer ka caateysan, slimmest ugu caateysan. Thin asna caato waaye, laakiin labada erey waxay dhahaan inta badan slimka in qofka loogu yeero he is slim, she is slim in la dhaho kale. For example, is a good and polite ay dhahaan, waa fiican tahay, waana wax anshax ah. Laakiin thin, ereygan thin, it shows you impolite, waxaanan akhlaaq ahayn oo aanan wanaagsaneyn ayay ku tusi ay dhahaan ku dhawaaqidiisa xatee. Marka anaga af Soomaaliga labadooda thin iyo slim caato le noo yihiin. Qofkan hilibka badan saarneen oo caata saaidka waxaa la thin. Thin caate, thinner ka caateysan, thinnest ugu caateysan. Big weyn, bigger ka weyn, biggest ugu weyn. Kulli marka xarfooda double laga dhigay maxaa yeelay consonantiga waxaa ka dambeeyo oo ka horeeyo vowel ka horeeyo. Tusaale d-da waxaa ka horeeya vowel, t-da waxaa ka horeeya e oo vowel ah, enter, I, enter, I, g-da, I, kulli waxay wataan vowel. Kabacdina consonant ay yimid, saas daraadeed consonantiga waa laba jibaara oo double lagu sameynaa. Markaas aan ka soconno inaa fahanteen aan rajeyna. Suppose ka soo qaad. The adjective sifada has waxay leedahay two syllables, laba dhawaaq. And ends waxayna ku dhamaataa in y, xarafka y ayay ku dhamaataa. Just change, bedel, markaas bedel the y, xarafka y bedel to I u bedel. And add kuna dar er ku dar to make saa u sameyso the comparative darajada labaad. And add ku dar est ku dar to make saa u sameyso the superlative darajada saddexaad. Adjective aa meesha noo taalo, comparativekeeda, superlativekeeda, saddexdii darajo waa isdaba dhigay. Xarfaha iyagoo y ku dhamaanana waa kuwaana, mid kasta y ku dhamaataa, waxaana ka horeeya xaraf oo consonant ah. Saas daraadeed y-da waa la bedelaa, I lagu soo bedelaa, kabacdi er ama est lagu daraa according to the comparative oo superlative-ka waxa uu yahay iyadoo loo eegayo. Easy fudud, easier ka fudud, easiest ugu fudud. Funny shactara ah, funnier ka shactaro badan, funniest ugu shactarada badan. Dirty wasakh, dirtier ka wasakh badan, dirtiest ugu wasakh badan. Nosy buuq, nosier ka buuq badan, nosiest ugu buuq badan. Happy farxad, happier ka farxad badan, happiest ugu farxad badan, happiest ugu farxad badan. Naughty dhib badan, naughtier ka dhib badan, naughtiest ugu dhib badan. Heavy
culus, heavier ka culus, heavier ka culus, heaviest ugu culus, lovely qurux badan, lovelier ka qurux badan, loveliest ugu qurux badan. marka ereyga lovely markuu love keligiis yahay waa jecel, laakiin markay ly la socoto beautiful loo adeegsadaa qurux badan ama attractive ah, soo jiidasho, sheyga soo jiidashada leh ama quruxda badan waxaa loo adeegsadaa lovely. marka xarfo badan waxaa arki doonaa comparativeka intaan ku jirno superlativeka, adjectivekan oo kulligood qurux noqonaya, sida lovely oo kale waa qurux, pretty waa qurux, handsome u tagi doono waa qurux, beautyga naftirkeedana waa qurux oo imaan doonto. waxaasoo idil oo quruxa luuqada afka soomaaliga waxaa lagu dhahaa un qurux, laakiin luuqadahan way midba meel u adeegsadaan. tusaale lovelygan sheyga quruxda badan oo haddana soo jiidashada leh ayay u adeegsadaan. pretty oo arki doono hadda qurux ah waxaa loo adeegsadaa for women, ereygan womenka isticmaalaan. marka pretty waa qurux, prettier ka qurux badan, prettiest ugu qurux badan. tidy hagaagsan, tidier ka hagaagsan, tidiest ugu hagaagsan. tidina waxaa la sheyga markuu habaysan yahay oo haddana oo nadiif yahay, macnaha shay kaste si habaysan loo dhigay, markaas waxay tahay tidy. for example qolka oo kale haddii wax kasta meeshoodii la dhigo, la nidaamiyo, qolkaas waa tidy. laakiin wax kasta hadii saddex ay acsan yihiin untidy oo noqonaa, the opposite of the word, ereygan cagsigiisa isku bedeli doonaa. marka tidy hagaagsan waaye, tidier ka hagaagsan, tidiest ugu hagaagsan. friendly naxariis badan, friendlier ka naxariis badan, friendliest ugu naxariista badan. ereyga marka friendly, haddii friend horta saaxiiba la, haddii laakiin ly raacdo ereyga wuxuu qaadanaa macno kale. waxaana loo adeegsadaa qofka marka uu dhaqmaayo si naxariis leh, haddana farxad gelinayso qaab ahaan qofka kale oo ula dhaqmaayo, markaas waxay u adeegsadaan ereyga friendly. marka waa naxariis, friendlier ka naxariis badan, friendliest ugu naxariista badan. teeny yar, teenier ka yar, teenierest ugu yar. teeny horta waxaa loo adeegsadaa waxaa ah very small, waxaa aadka u yar in size cabir ahaan oo amase amount xaddi ahaan. marka small iyo teeny iyo waxaasoo idil waa yar tir ahaan, waxaa cadad ahaan waxa u yar. marka teeny yar waaye in terms of number, size oo amount xaddi ahaan, number ahaan, tiro ahaan. teeny yar, teenier ka yar, teeniest ugu yar. use isticmaal more and most, labadan isticmaal to compare, saa isku barbar dhigto most other two syllables, syllable adjectives, most other two syllable adjectives, adjectiveyada kale ee labada dhawaaq ah intooda badan. you will also use, sidoo kale waxaad isticmaali doontaa more and most ayaa isticmaali doontaa with all adjectives, dhammaan sifooyinka oo idil ayaa u isticmaali doontaa that have, kuwaasoo leh more than two syllables, wax ka badan laba dhawaaq. tusaale adjective meeshaan u yaalo famous, caan waaye. more famous ka caannimo badan, most famous ugu caannimada badan. famous waa caan, more famous ayaa ka caannimo badan, most famous aan ugu caannimo badan. marka ka caannimo badan ugu caannimo badan, ka caannimo badan ugu caannimo badan. precious, precious waxaa la qaali ah, precious qaali ah. more precious ka qaalisan, mostly precious ugu qaalisan. precious waxaa loo adeegsadaa sheyga ee dhifdhif tahay, qiimihiisana oo badan yahay in la helo. sheyga dhifdhif ee tahay in la helo, haddana qiimihiisa uu badan yahay, sida dahabka oo kale, silfarka oo kale, qalinka oo kale. waxyaabahaas oo ee qaaliga ah haddana helidooda ee tahay naadir, waxaa loo adeegsadaa precious. marka precious waa qaali, sheyga qiimihiisa badan yahay. precious qaali, more precious ka qaalisan, most precious ugu qaalisan. handsome qurux badan, quruxdan waxaa loo adeegsadaa for man, nimanka ayaa loo adeegsadaa. handsome qurux badan, more handsome ka qurux badan, most handsome ugu qurux badan. exciting xiiso badan, more exciting ka xiiso badan, most exciting ugu xiisaha badan.
beautiful qurux badan, more beautiful ka qurux badan, most beautiful ugu quruxda badan, expensive qaali, expensive qaali, more expensive ka qaalisan, most expensive ugu qaalisan, comfortable raaxo badan, more comfortable ugu raaxada badan, most comfortable, more comfortable ka raaxo badan, most comfortable ugu raaxada badan. marka comfortable markay tahay oo dharka la joogo ama alaabta guriga la dhigto la joogo kale, waxaa la wixii kaa dhigayo jir ahaan mid dareemayo nasiino farxad, waxyaabahaas waxaa lahaa comfortable. tusaale hada fadhi carbeed ku fadhiisato, fadhi carbeed inta aad ku fadhiiso waxaa aad dareemaysid oo istireexa oo raaxa ah waxaa la comfortable. marka comfortable raaxa badan, more comfortable ka raaxa badan, most comfortable ugu raaxada badan, delicious macaan, more delicious ka macaan, most delicious ugu macaan, interesting xiiso badan, more interesting ka xiiso badan, most interesting ugu xiisaha badan, difficult adag, more difficult ka adag, most difficult ugu adag. qaybtan kale waxaan ku arkaynaa irregular comparative and superlative forms. qaababka forms waxay yihiin qaabab darajada saddexaad iyo darajada labaad kuwooda isbadbedelo. A few adjectives sifooyin yar don't form ma sameeyaan the comparative kooda darajada labaad and superlative iyo darajada saddexaad forms qaababkooda in any of the usual ways qaababka caadiga ahaa oo aan garanayn kuma sameeyaan the comparative darajada labaad and superlative darajada saddexaad forms qaababkeeda of these adjectives sifooyinkan are different words waa ereyo kala duwan. Called-kuwan kuwaasoo lagu magacaabo irregular forms qaababka isbadbedelo. irregular forms qaababka isbadbedelo. tusaale adjective meesha noo yaala comparative-kiisa iyo superlative-kiisa: good fiican, better ka fiican, best ugu fiican, bad xun, worse ka xun, worst ugu xun, little yar, less ka yar, least ugu yar, money badan, more ka badan, most ugu badan, most ugu badan, money badan, more ka badan, most ugu badan, far fog, distance ahaan, place ahaan, far fog, farther ka fog, or amase farther qoraal ahaan way kala duwan laakiin waa isku dhawaaq, farther oo farther ka fog, farthest oo farthest ugu fog. For example, tusaale my painting is good, sawiradeedu way fiican tahay. My painting sawirkeyga is good wuu fiican yahay. Milana's painting sawirka Milana is better ayaa ka fiican, but laakiin Andrew's painting sawirka Andrew is the best ayaa kan ugu fiican. marka good, better, best saddexda waa lagu isticmaal meesha. halkaas ayaan ku simeynaa ilaahay ka raali noqdo. cashirka saddexaad intaan ku kulmeyno waxaan idin leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waa macalin xasan oo idin leh cashirkan iyo cashirka xiga inta aan ku kulmeyno kheyr iyo barwaaq iyo bashbash ayaan isku rajeyneynaa. waxaan rajeyn doonaa in laga faa'iideysan doono in badan cashiradan oo aysan noqon doonin wax tagay oo aanan faa'iido lahayn. idinkana ilaahay idinku anfaco intii aragto videogan ha gaarsiiso intii kale ee u baahan.